Mas'uuliyiin ay ugu horeyso gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Gedo Marwe Faadumo Sheekh Daahir iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Cismaan Nuux Xaaji Macalimo ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha aqalka ururka haweenka degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo. Xaruntan oo howlgab ahayd tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya kana muuqdeen dayacaad iyo burbur xoogan soo wajahay 27 sano ayaa ka mid noqonaya dhismayaal badan oo ay dayactiraan dowlad goboleedka Jubbaland. Ururka haweenka degmada Garbaharey ayaa soo dhaweeyay xarunta dhismaha iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin dayactirka dhismahan. Waxaana ugu horeyntii goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Aadan Siraad Maxamuud, gudoomiyaha ururka haweenka degmada Garbaharey Khadiija Cali Shire iyo mas'uuliyiin kale. Subxaanahu wa ta'aala mahad iska leh maanta la isugu keenay halkan annagoo muslimiin ah kana arrinsanayno muxuu ahaayay horumarka deegaankanaga iyo dib u dhiska deegaankanaga. halkaan waxa weeye guriga haweenka ee degmada Garbaharey waxaad ogsoon tihiin 22 sano ka hor Soomaaliya inuu dawladnimadeeda ay iska burburtay. maanta waxaan ku guuleysanay inaanu macnaha isugu imaano dhagax dhigga guriga degmada Garbaharey ee haweenka muxuu ahaay 27 sano kadib asaga oo aan doonayn inaan dib u dayactirno oo dib loo dhiso. marka waxa Allah subxaanahu wa ta'aala loogu mahadiyo gaar ahaan muxuu ahaay shacabka reer Garbaharey iyo ururka haweenka iyo wasaaradda maxaan ku raadin dowlad goboleedka Jubbaland ee haweenka intaba iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo. barnaamijkan waa barnaamij laga soo qayb qaatay in badan process ku soo jiray soo socday maanta Ilaahay uu noo suura galiyay inaan ku guuleysano muxuu ahaay inaan dib aan u dhagax dhigno. bismillaah Ilaahay baa mahadle maanta meeshan isugu keenay aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay. dadku qorax bay dareemayaan uu qabow baan dareemayaa 27 sano guriga haweenka oo burbursanaa maanta hadii la dhagax dhigahayo ma sha Allah dawlad inaan leenahay horta halkaas ay ka muuqatay waa wax aad iyo aad loogu farxo waa wax wanaagsan waa wax maxaan ku iraaday annaga dhan farxad gelinayo. waxaan soo dhaweynayaa dawladdanada Jubbaland iyo midda dhaxabo in alla intii ka qayb qaadatay maamulkanaga gobol iyo degmo ururka haweenka ururka dhalinyarada inta ku faraxsan oo dhan maanta annaga waa kula faraxsanahay. farxad weyn bay noo tahay. Ilaahay baa ku mahadsan ilaahaygiina soo gaarsiiyay intaan in ka badanna waan ka rajaynaynaa oo maxaan ku raadin intaan kaliya kuma ekaanahay dhagax dhigga iyo quruxda bilicda guryaha iyo maxaan ku raadayay maamulka degmada iyo maamulka gobolka iyo guryaha badan baa noo haray waa la dhagax dhigayaa. waxaan soo dhaweynayaa in alla intii noo garatay maanta gurigaan saan u ego foosho xun in ay naga maxaan ku raadayay naga dhagax dhigaan oo noo dhisaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. gudoomiye ku-xigeenka degmada iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada ay uga hadleen ayaan maanta ugu faraxsanahay 27 sano ka bacdi dawladii Soomaaliya ee dhexe markay burburtay guriga ururka haweenka ee gobolka iyo degmada Garbaharey in maanta ay hay'adda OM qaybta dalbila ay dhisayso iyo maxaato iyo kambaniga hanad uu dhisayo aad ayaan ugu faraxsanahay. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta aan isugu nimaanay dhagax dhigay guriga hooyooyinka xaqiiqatan sida kaga muuqata shucuurta dadka aad ay uga duwan tahay waxa la yiraahdo dhagax dhigii iyo waxyaabo iyo hawlihii hore ka soo qayb qaadan jirnay. maxaa yeelay hooyooyinka waa udub dhixaadkii dawladnimada waa gundhigii nabadda wax badan ayay ku soo shaqeeyeen geedo hoostood wax badan ayay ku soo shaqeeyeen guryaha ayaga ee lacag jeebkooda ka bixiyaan. waxaan dhihi karnaa horumarkan iyo hawshan aan maanta u taaganahay waa hawl in badan aan leenahay way soo dib dhacday laakiin si kasto ay tahay waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta hooyooyinka loo yagleelahayo xaruntoodii rasmiga ahayd ay ku lahaayeen degmada Garbaharey. ugu dambeyntii ayaa waxaa dhankooda hadalka soo gabagabeeyay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Gedo Marwe Faadumo Sheekh Daahir iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Cismaan Nuux Xaaji Macalimo iyagoona sheegay in loo baahan yahay in la dayactiro xarumaha harsan. gabdhaha wax badan ay rag wax la qabteen waxaan aad ugu faraxsanahay marka maanta inaan ayaga wax la qaban oo aqalkooda ilaa saaki ilaa shalay aan u taagnaan. waa fursad aad iyo aad qaali u ah in loo dhiso gabdhaha hooy ay ku nastaan oo ku shiraan oo ku sheekaystaan in loo dhiso aad baan ugu faraxsanahay. waxaan jecelnahay mar haddii xarunta gobolka gabdhihii loogu dhisay gaar ahaan degmada Garbaharey degmo kasta oo 7 degmo ku taalo oo gabdhaha ay leeyihiin in loo dhisi doono. sax weeye aad iyo aad baan tan ayad u rajaynayaa mar hadday codsatay gudoomiyihii ururka haweenka ee gobolka aad baan u jecelnahay in loo dhisi doono hadii la raali ka noqdo. haweenka gobolka gudoomiyaha gobolka afkiisa ku hadlahayo
waa laga hadlay intii hadashay baan ku raacsanahay intaas wax yar baa ii weheliyo waxa weeye gobolka 7 degmo weeye 7 degmaba waxaan ka codsanayaa dawladda Jubbaland iyo hay'adda OM inay gabdhaha guryo u dhisaan ay ku shiraan oo ku muxuu ahaatay arrimahooda ku qabsadaan maadaama wax badan ay muxuu ahaatay soo halgameen maadaama la gaaray waqtigayna siina samayn lahaayeen maadaama la gaaray waqtigii muxuu ahaa dawladnimada la yagleelahayay waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo qusayso 7 degmo oo geedo Jubbaland in looga dhiso midka maanta la dhisaya mid la mid ah in loo dhiso gabdhahan rabnaa oo aayahooda ay uga tashadaan gabdhuhu wax badan iyo guulo badan bay dhalin karaan gabdhuhu haday meel isku helaan oo ayaga u madax banaan helaan guulo badan bay soo hooyinayaan waxaan codsanayaa oo ku celinhayaa inaan helno 7 degmo gado xuquuqdi aan lahayn oo ama Jubbaland aan ku lahayn ama federaalka aan ku lahayn inay gabdhuhu ka helaan warsame xaaji faarax raadiyaha iyo TV-ga dawladda koonfur galbeed degmada Garbaare ee xarunta gobolka Gado.